halkani waa taalada shuhadada loogu magac daray ee magaalada Laascaanood xilligana ah meesha ugu caansan dhowr dhalinyaro ayaa halka naftooda ku waayay iyagoo u halgamaya ayahooda oo isla markaasna ay beegsadeen ciidanka Soomaaliland waxa kamid ahaa Cabdalle oo hadda halkaas sawirkiisa ka muuqdo waxa ila jooga Foosi oo ah Cabdalle walaalkii Foosi soo dhawow waxa looga sheekaysaa halkan halgankii ka bilowday halgan ka bilowday halgan aad u dheer buu ahaa waqti adag la soo maray dhalinyaro badan baa halkan ku dhimatay uu kamid ahaa walaalkii Cabdalle Maxamed Xarsi oo isagoo calankiisii halkaas suraya uu ku geeriyooday madaxana laga tugtay ciidamada Soomaaliland ka tugtay maxaa Cabdalle ka xasuusataa nooga sheegi kartaa nin noocay ah Cabdalle wuxuu ahaa nin horta aad u da'yar buu ahaa aniga dhowr qof aan noo dhaxeeyay nin aad u da'yar oo cibaadada buu ahaa galab ku dhimanayay waxa cadayd kuwa wiilal masaajidka ku wada tukadeen baa noo cadeeyay marka wiil cibaadada buu ahaa dhalinyaro da'yarna buu ahaa isagoo calankiisii surayna waa lagu dilay habeenkii marka waxay ahayd markii bilaabanayay kacdoonka markuu kacdoonku ayaa ma socdaa ayuu Cabdalle haye laakiin xilli bay ahayd sees u dhacday waxay ahayd goortu dhintay 30kii bishii December isagoo calanka suray waliba galabnimay ahayd dadoo galabkaasuna aan xitaa dhalinyaradii meedkiisii qaadaysay aad loo sii xabadeeyay maskaxdiisii halka kaga soo horeysay waana u dhigbaxay markuu la soo toogtay xabadu ku dhacday xabad weyn bay ahayd maskaxdiisii way ka soo horeysay markuu ku dhacay dhalinyarada soo qaadana waa la xabadeeyay isagoo aan halkan la dhaafin bay naftu ka dhacday madaxuna maskaxdiisa waa soo daadatay madaxuna markii la meedhiyay aad u baalkaysna u dilaa isay kaliya walaalo kula dhashay may wiilal kale way la dhasheen walaaladaya hadda calankii baa ku xiran madaxa ugu xiran tuutana waa sidata maxaa u halgamaysaa waxaan u halgamayaa walaalkay iyo walaaladay iyo saaxiibadaydii kale halgankii ku dhinteen inaan ku wada dhimanno oo kaliya waxaan kaga samari karnaa Soomaaliland oo ka baxday magaaladeeda iyo gobolladeeda waxaan u halgamanaa inta mid naga nool yahayna waa inta mowqifkeeduna waa Soomaaliland oo ka tagta gobolladeeda waan dadkeedina kaga samranaa u halgamanaa inta mid qof naga nool yahay waan u halgamanaa maxaa doonaysaa dhalinyarada inay soo noqoto waxaan doonayaa Laascaanood inay noqoto magaalo amniya ee dadkeeda xukumaan Laascaanoodna way tashatay garaadadoodii dhalinyaradoodii waa wada tashteen waxaan doonayaa magaaladooda ay gacanta ku dhigtaan amnigooda ka taliyaan magaalada in badan bay ambilaan darro ahayd dad badan lagu laayay kaasiyaa weey maxaa Cabdalle iyo adiga hadda dhalinyarada kale soo kiciyay oo keenay inay ku banaabaxdaan Soomaaliland waxaana kiciyay amni darrada iyo dadka la iska laynayo maalin walba la dhahayo hebel waa dhintay Ilaahay u naxariisto waan dicidii iyadoo waliba gobolka Sool dadkii ciidankii ugu badnaa Soomaaliland joogeen haddana kaliya maalinta habeenka qofka la dilay waxa cadayn u ahayd habeenka ciidanka ugu badan baa la keeni jiray qofkii ma la dilay ciidanka dadku ma ku soo yaaceen ciidanku dadku waxay ku sameyn jireen qofkii ma isiraadaan soo qaada dhakhtar geeya ciidankii baa xabadeyn jiray waa si waayo waxay doonayaan qofku si naftu uga dhacdo oo waa dhaawac tir ay ku wadeen dadka maxay tahay marka way fariinta u dirisay dadka ACC iyo dadka kale Soomaaliyeed marka fariinta ACC u diray waxay tahay in annaga halganku mid naga wada yahay gobolada ACC dadkana caalamkana waxa uu sheegayaa in annagu aanu halgamayno magaaladeedii lagu soo duulay iyo goboladeedii waxaan kaliya u halgamaynaa waa in magaaladiisii lagu soo duulay baan nahay